askari qori la haleelaya, taliye amar la ordaya, siyaasi qorshe xumo la cararaya, wadaad digri been ah la dhurmaya, ganacsade lacag xaaraan ah urursanaya, oday dhaqameed dhaar ku xagafsiinaya, madax talo xungoynaysa, intaas iyo wax la jira ayaa arliga ka jira. shacabku haddii aad isweydiisid fikrad ma ka haystaan jihada loo socdo, shaki baa kaa gelaya in aad haa ku jawaabtid. maxaa laga dagaalamayaa? yaa lala dagaalamayaa? asalkaba dagaalka maxaa keena? labadii indheergarad ee saynisyahanada ahaa ee Sigmund Freud iyo Albert Einstein oo qaarkii hore ee qarnigii tegay warqado isweydaarsaday ayaa isku dayay in ay su-aasha maxaa dagaalka inoogu wacan waa miiska saaraan oo u faaqidaan tabtii uu Freud nafsada insaanka u lafaguri jiray una kala dhigdhigaan sidii Einstein uu saxaarada atomka u kala saafi jiray. waa dhab sida uu Freud daraarta dhambaalkiisa ku dacaldhabay in hamuunta dagaalku ay basharka kaga sii hadhay abtirsiintiisa xayawaannimo ee ayda ku aroorta. waase habdhaqan ay ahayd in laga weynaado oo laga caqliyeysto. maxaa talo u diiday in insaanku sinji ahaan ka koro caqli darrada gacan ka hadalka gaadhsiisan iyo caqliyadda ah in mindi lagu taago. dagaalku waa dandarro weyn, waa dayac, waana qaabka ugu xun ee nacaybka loo cabiro. laakiin yaa isnaca? dad isyaqaana ama isbartay ayaa laga filan karaa in ay dareen nacayb iyo jacayl ka uu yahayba isu qaadaan. hase yeeshee barasho horteed miyaa la isnici karaa? maxaa keenaya in qof aanad aqoon isaguna ku garanayn haddii aad sheekaysan lahaydeen oo aad isbaran lahaydeenna laga yaabi lahaa in aad dadka dunida ugu saaxiibsan noqotaan, aad disho ama isagu ku dilo? dhiigaaga ama kiisa maxaa keenaya in la daadiyo idinka oo aan iskaba bogan? yaa kugu shubay kuna faray fariinta ah in aad disho ama ugu yaraan meyd ahaan uga tagtid qof dhan oo kula mid ah, oo sidaada cawlan, oo sidaada caydh ah, oo sidaada qatan, oo sidaada dayacan? qof laga yaabo inaad isku baahi iyo dabadeed isku baahtihiin, qof laga yaabo inaad iskaga dhowdihiin kii amarka idin soo siiyey. askariga cagaagan ee aradan ee afadiisa iyo ubadkiisa aan mustaqbalkooda damaanad qaadi karin, ee tiisa aan daryeeli karin, maxaa ka dhiga mishiin lagu awrkacsado iyo gudin lagu xaaba doonto? maxaa dadnimadii ka qaaday ee dabadeed ku sababay inuu isagu qof kale basharnimada siijiyo? filosoofadii reer Jarmal ee Hannah Arendt waxay qortay in sharka uu sameeyo qof aaminsan in amar kasta si indhala-aan ah loo fuliyo oo aan ka fikirayn uu yahay shar maalayacni ah, banal evil. laakiin sharkaasi maalayacni keli ah ma aha. sidoo kale waa dhaqanka qof damac miskiin ah oo daadku hoos maraya. waa qof aan daadanayn ama aan helin fursad uu ku fikiro, isla markaasna isku weydiiyo waxaa ka dhexeeya isaga iyo qofka kale ee qoryaha la isugu dhiibay, qofka kale ee cadowga loogu sheegay. askarigani waxa ugu weyn ee uu goobaha nafwaaga kala hoyan karaa waa in uu dhinto, laakiin kii soo diray waxa ugu yar ee uu ka dheefayaa waa in uu ku dallaco. xabadda laabta ka fadhiisata askariga amarka raacaya, dhiigga ay saydhiso ayuu afka u dhigtaa oo ku naaxaa qofka taliyaha ama madaxda ah ee taladaa geerida gooyey. cida dagaalka oogtay waxba kagama duwana nin dabshitay. waxa kaliya ah ee dabka hurmaya wax ku noqonaya waa xaabada iyo xansaska uu ninku adeejiyey. tabtaas oo kale cidda keli ah ee ku nafweyda ama ku naafowda dagaalka shidmaya waa askariga qorigu ka culus yahay ee sida dhuxusha la shitay. ninkaa dabka shidanaya sida uu diirimaadka iyo danaha kale ugu qunsado ayuu taliska amarka colaada lahaana ugu macaashaa, ciddii ku xunnaydna ugu naasnuujiyaa ama ugu usnuujiyaa turabeylka meydka iyo taaha maatida. inkastoo dagaalka basharka dhex maraa oo dhami uu yahay colaad sokeeye, misena waxaa si uurgubiyo xun dekanada la dhex dhigo
qoysas isku duruuf ah oo isku deegaan ah oo isku dacdaro haysato oo oday wadaag ah oo ay ahayd in iyagu intay midoobaan ay iska dhiciyaan ciddan isku diraysa. waataynu u bixinay dagaal sokeeye. bartamihii 2019 anigoo jooga degmadii aan ku dhashay Bradley ayaan aroor hore abtigay Maxamed u sheegay war aan markaa akhriyay oo ku saabsanaa in laga baqa qabo dagaal ka dhex qarxa dalalka dariska ah ee Rwanda iyo Uganda. kolkaas buu si daacad ah u yidhi Ilaahay ha kala qaboojiyo. wuxuu ka daba keenay inkastoo aynaan idina ka garanayn oo aynaan odhanayn in hebel baa ku dhintay, isagoo muujinaya caqiidada guud ee la rumaysan yahay ee sheegta in geerida qofka aad seegtaan ay ka xanuun badan tahay tan qofka qalaad. wuxuuse isku barqabtay laakiin kolleyba qofkii dhintaa cid buu in hebel u yahay oo garanaysa. hadalka abtigay wuxuu soo koobanayaa qodobka aynu ka hadlayno. dagaalka sokeeyuhu wuu ka qalaadh yahay mid kasta oo kale. sida runta ah waxa isiga oo isku dan ah dagaal oogayaasha naf afuufka ah ee dhabtarada ka shaqeynaya ee labada dhanba xasarada iyo xumaanta ku badinaya. inta badanna waa rag waaweyn. waxa iyaguna gaar isu xiga labada wiil ee inta badan da'yarta ah ee inta degta laga cusleeyay lana faray in mid kasta soo majeesta noqdo. sababta loo yidhi ha soo jeesan waa in haddii uu soo jeesan lahaa uu arki lahaa cidda dhab ahaan nacabkiisu yahay. cadowgaagu ma aha kan lagaa horgeeyey ee hortaada jooga ee waa kan ku soo rideeyey ee dabadaada jooga. filosofiyada Hegel, Nietzsche iyo Freudba waxay isku waafaqeen in insaanku uu u nugul yahay damac awood jeclaan ah oo geesiisa inuu aakhirka kaas u adoomoobo una gumoobo. kuriga yar ee qoriga la laadsanaya waa laga yaabaaye wuxuu qabaa in uu xor yahay dadkiisan horeynayo. dagaal kasta waa damac xoogan oo ciddan ku gubanaysa ku riixaysa in ay rumaystaan in ay dhab ahaan xor yihiin. laakiin waa adoomo, waa abbaano, cid kale ayay u qabaanayaan. waa midiidiin. maxaa yeelay naf buu jarayaa ama tiisa ku waayayaa isaga oo laga dhaadhiciyey in uu taas wanaag ku helayo. maya, meesha damac kale ayaa ku jira. raggan iyo marar dhif ah dumarkan dagaalka oogaya ayaabaa raba in ay qabkooda iyo awoodooda ku muujiyaan in ay adiga dabka kugu ridi karaan. labada maroodi ee islaayay ayaa sababaya in cawsku baaba'o. labada dagaal ooge ee labada dhinac ayaa inta badan wax isku diida. dabadeed si ay uga badbaadaan wejigabaxa ka dhasha in taada lagugu diido ayay ku baaqaan in qofka kale wuxuu yahay la tuso. way noo tahay, way sunaallaa, is arki doonee, waa halkaad gashaa. ereyada caruurnimadii aynu ku xasuusano ayaa dagaaloogayaasha u ah xaqiiqo xigta. waayo dagaalku waa jiro insaanka guud ahaan quruun hore ka soo raacday. qofkana gaar ahaan dhallaannimadiisa is-shabahaan. labadii dagaal ooge sida la dhaho way isxiniin taabteen. markaa nin kasta waa in uu raganimadiisa ku muujiyo inuu adiga oo askari ah kugu diro askarigaas kale. waa in uu sida rabaayadda kuu sunto ambo target ay tahay in aad abaartid. dabadeed labada qof ee surufay ayaa labada wiil ee askarta ee aan aqoon ee iska horgeeya iyagoo colaad iyo jidhna ku hubaysan. dadnimo taranka ku dhaca ayaa indhaha iyo xiska batara. laba qof oo muruqmaal ah oo nolosha caadiga ah ee aan xuquuqdii ay u qalmayeen ku helin ayaa goobta nactooyada intay isku arkaan halka ay gacmaha isku qabsan lahaayeen ee uu caasi lahaayeen fidnawalayaashii soo diray intay isku jeestaan iyagu iscuna oo isdabarjara. askari qori la haleelaya, taliye amar la ordaya, siyaasi qorshe xumo la cararaya, wadaad digri been ah la dhurmaya, ganacsade lacag xaaraana urursanaya, oday dhaqameed daar ku xagafsiinaya, madax talo xun goynaysa. intaas iyo wax la jira ayaa arriga ka jira. talada askariga la gudbonina waa in uu intaa
iyo wixii soo raacaba ku gacan saydho, walaalkiisna la isku boqnogoynayana intuu fahmo in ay isxigaan uu ku wacdfuro abaanduulayaasha nacaybka. waa in uu fakaro, dagaalkana diido, maxaa yeelay sida la yidhaahdo dhabarkaaga waxaa fuuli kara uun qofkii aad u foorariso.